أحييكم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا أينو جعلنا هاي وكسو دوادا جنال كينا كحرو فخرجا هادو أبوينا إدما مانتا وحان إدين سو قدبين دونا nooyinka hooyada uurka leh dhibaatada u geysan kara ama cunuga uurkeeda ku jira banaanka u soo saari kara. Waxaa macquul ah cunooyinka in hooyada uurka leh in makaankeeda ama minka uu furmo oo cunuga uurka ku jira banaanka u soo baxo ama uu u dhaco waxa loo yaqaano absorption ama complete absorption. Waxaa ka mid ah cunooyinka aan la siin karin hooyada uurka leh ama saameynta weyn u geysan karo malabka waxa uu ka mid yahay cunooyinka mase waxyaabaha saameyn weyn u geysta cunuga uurka ku jira oo wuxuu u geysan karaa in uu banaanka u soo saaro minka furo kadibna cunuga banaanka u soo saaro. 2 hilibka idaha ama wax walba oo hilib ido lagu sameeyay ama lagu kariyay. Hilibka idaha iyo wax walba lagu kariyay ama lagu sameeyay wuxuu u keysan karaa maamada uurka leh saameyn aad u weyn oo taasoo ay sababayso in ay banaanka u soo saarto caruurta minkana ay furto. Sidoo kale waxaa saameyn u geysan kara babayga waxa uu ka mid yahay cunooyinka maamada uurka leh dhibaya aan la siin karin ayna isticmaali karin. Waxaa kale oo jirto sanjabiilka asna wuxuu ka mid yahay maamada uurka leh waxyaabaha saameyn aad u weyn u geysan kara. Waxaa kale oo jirto xulbada waxay hooyada uurka leh u geysan kartaa in ay minka fusho soo dedejiso foosha. Intaasi waxaa noogu eg cunooyinka hooyada uurka leh ayna isticmaali karin. Cunooyinka aan sheegnay waxa ay furi karaan minka hooyada uurka leh waana ku dhib cunuga uurkeeda ku jira in uu banaanka yimaado walow tii Allah aana meesha laga saari karin. Intaas waxaa inoogu eg barnaamijkeeni aan kaga hadlaynay waxyaabaha dhibaya mase aan isticmaali karin hooyada uurka leh. Waxaa inoo soo diyaariyay Dr. Cabdisalaam Haashim Azar. Waxaan aniguna ahay tabiyaha barnaamijka. Intaa midkan la ceela inaan ku kulmi doono waxaan idinkaga taginaa sidaas iyo amaana Allah. Isma dhaafno. Ha inaga hilmaamin share-ta, comment-iga iyo subscribe-ka waxay inoo tahay dhiirigelin insha Allah.